wadahadaladii u dhexeeyay wadamada Somaliland iyo Soomaaliya oo ah kuwii ugu adkay dhexmara labada wadan ee Somaliland iyo Soomaaliya ayaa lagu soo gabagabay magaalada Facaweyn ee Istanbul ee wadanka Turkiga. Shirkan ballaaran ee dalalka Somaliland iyo Soomaaliya oo ah wajigii shanaad ee isku hor fadhiistanaya kuwii ugu adkaan. Dalka Turkiga oo isagu martigeliyay markii saddexaad ayaa u qabtay inay muddo 3 cisho ay ku wada hadlaan labada wadan. Hase yeeshee shirka oo ahaa mid aad iyo aad u culus oo doodo dheer isku wadaarsaday ayaan ku dhammaan waqtiga loogu talagalay, taasoo safiirka Somaliland iyo Soomaaliya uu hal maalin ugu daray. Wafdiga Somaliland uga qayb galay shirkaasi ayaa madasha shirka ku soo bandhigay taariikha aad iyo aad u cad oo ku saabsan maraaxilkii kala duwanaa ee Jamhuuriyadda Somaliland soo martay dhibaatooyinkii loo geystay in beesha caalamka ay ka sugayso Somaliland aqoonsi buuxa. Gooni-sutaaga Somalilandna uu yahay mid muqadas oo ah go'aan shacbi. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Somaliland Mudane Maxamed Biix Yunis oo hogaaminayay wafdiga Somaliland una saxay qodobadii ka soo baxay ayaa ka hadlay shirkaasi. Marka ugu horeysa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dawladda Turkiga oo aad iyo aad isugu tixgelisay sidii labada wadan ee walaalahay ay soo arki karaan, aad iyo aad noogu dhex jirtay inay wax mid dhalaa ka soo baxaan wada hadallada labadeeda qolo ka dhaxeeya. Ma hadda waxa dawladda Turkiga oo kuna ballan qaaday in waxyaabaha la isku heshiiyay ka mid tahay in halkaan ka sameeyay secretariat. waxaanu ku faraxsanahay maanta inaan labadeedii qolo ku wada hadallo wanaagsan horumar leh. aananu aaminsanahay in marka ugu dambeysay aanu gaari doono wada hadallo ku dhamaada khayr oo qolo kasta waxa doonaysa ay ugu dhamaato. saan ugu horumarka horena u sheegay waxa weeye qadiyadda Somaliland waa mid aan aanu qadarin ay tahay shacbigu wuxuu ku hadlay. shacbiga reer Somaliland waa la wada socotaan wuxuu go'aansaday mid hore inay gaar noqdaan. waxaanu u soconaa in wada hadaladaasi insha Allah biidillah al-karim halka ay gaarsiiyaan. waxaanu ku faraxsanahay maanta in dawladda Turkiga la koobo wadan oo walaala oo siman oo wada hadlayna oo maqaalkii iyo masiirkii doonayaan inuu gaarno halkan suuqay keeneen. habka maanta aanu u dhignay wada hadaladana ay tahay wada hadallo noo baneynaya inaan hore u socono oo qaabka loo hadli doono iyo akhlaaqiyadiisa iyo sida loo maamuusi doono wada hadalada dambe ee soo socda aanu dhiganay. waxyaabo fara badan oo maanta aanu u qabnay inay guul tahay aanu gaarnay. mar labaad waxaan mahadnaqayaa dawladda Turkiga oo ku ballan qaaday inay halkan secretariat nooga sameeyso. waxaanu ku tala jirnaa insha Allah inaan 9 dhexdeeda soo nimaadno. horteedna laga yaabaa inaan labadeeda ergo ama madaxdayda aanu soo nimaadno 6 mar oo ku kulano si aanu u sii diyaarino hawsha. waxaanu Ilaahay ka baryaynaa in hawshan aan dib u dhicin. wasiirka wasaaradda madaxtooyada ee Somaliland Mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa isaguna iftiimiyay qodobadii la isku afkartay. sida ka warhaysan waxay ahayd wada hadalladu waqti bay soconayeen. waxay qaateen door 3 cisho. doorkan 3 cisho qaateen 3 cisho waxa weeye la isku mari lahaa qodobadii ay ugu muhiimsaneed in qadiyadda Somaliland iyo madaxbanaanideeda ay qiraan walaalaha inay qiraan oo aqbalaan iyo qodobada la midka ee muhiimadda u leh shacabkeenu matalinaya bulshadayadii. waxa runtii akhiiran ka soo baxay qodobada aad dareemaysaan ee ka aragteen qoraalkooda aragteen oo ay kamid tahay in wada hadallada qorshe loo sameeyo qaab dhismeed ama hanaan ama geedi socod wax loogu yeero loo sameeyo qaabkay u sii socon doonaan. sidoo kale iyadoo taa laga duulayo waxa kamid ahaa qodobadii lagu heshiiyay in la sameeyo secretariat ama waxa weeye xoghayn xafiis u santara ama u dhaxeeya oo ay Turkigu waxa weeye qarashkiisa bixiyaan oo laga sameeyo Turki qolo walbana ay cid u magacawdo waxa weeye cid soo magacaabato. sidoo kale qodobkii hore hawadii lagu heshiiyay fulintiisii iyo ka shaqaysiintiisa qaabkii looga shaqaysin lahaa ayaa iyadana la asteeyay. qaabkii looga shaqayn lahaa la asteeyay in gudiyadii la magacaabo iyo sidoo kale farsamayaqaanadii soo diyaarin lahaa qorshihii uu ku socon lahaa hawada Somaliland iyo Soomaaliya ay ku heshiiyeen in xafiis Hargeysa looga sameeyo oo waxa weeye lagana maamulo. waxa kamid ahaa qodob ah in la qiro oo waxa weeye la garwaaqsado sidii cadawtinimada lahayd loo gumaaday ama dhibta loogu geystay dadka reer Somaliland. dadka reer Somaliland iyo Soomaaliya guud ahaan xilliga dawladii ka jirtay dhibtii ay geysatay in la wada cambaareeyo la qiro waxa weeye ayaa runtii kamid ahaa
وأنا هين أرين سهلان ورنتي أهيد أرين درين كيجا عادي عادو بدريس حسوقي لوجستي دياردي كعية كهذه هرجيسة دقيني هرجيسة ضدك الشعب كان الجراعي لا ينتي حد كتلابيسي أي كجد حد كتوبي وتلابيين أرين لا يلاوي كلامها وحوي وأرين حسوس بدن لا تاي سيد الوقر لها لونا سمين لها وحوي عمبارين وذكر الله سمين لها ما دام دولة الصومالية متشو دولة حلقة هيدا كرسي قد يكون فردنا وحنميز كمركن يمرك هرب صوردقني إن قران أبولوجينا كبحيان مرك قرال كوارتين كل وأحبال لقيه شيء قرالكي أو هذا سفي عنان سلان هاي وحكوله أي لقيه شيء أو الإسلاف كرتي تاسو أبور كرتي جوج وهذا الكوينوسيس عنكره وهجانو نقون كرتا أما سالو نقون كرتا إن مركز لقرو دبتي لو جيستين لقرو واقصدو تذكر سومالان إن جرب يحق حقوق إلين كو جوستين مدح بناندو دي كلاصون نقدين أو أي تذكر سوماليا قران إن أنا يهين عادفت يتشبو يوحل إسكيري أي تهي وحوباهن إن لا يسوقره لنا أوجادو إن أنا يهين وحلا جسون نقون وحوي يقول يستاجي مدح بنادر الصومالي لان برشة الصوماليين أعضيسي إني تهاي وحنا لقصون نقول إن تهاي أي سمدو تهاي أو أن وحوي كدولينا وحكم إذا قضى بدن أستين يقاب كيهنانك وهذا الله دوس عندونان ودريم كريسة دوكمنتي إلى شن بيت إلى أفر بيت إلى شن بيت أي الله كاس حدي دوكمنتي إنه عسى الله كاس حدي وحوي دارنا وحو أستيني هنانك ولا هذا الله مركب وحكوا لا نفرينا ولا هذا الله نيو نقول دونان بالوي شيء waxaan ku faraxsanahay in wada hadaladii labada ergo ee Soomaaliya iyo Somaliland ee maanta wareegoodii shanaad ay ku soo gabagabay magaalada Istanbul wada hadaladu runtii waxay ahaayeen wada hadallo waqti dheer la geliyay juhdi badan la geliyay labada kooxood ama labada team runtii iyo wanaag aad u badan iyo firfircooni aad u dheer ay geliyeen waxaan ku faraxsanahay inaan soo saarnay qodobo ifinaya tilmaamayana mustaqbalka wada hadalada iyo halka aan jecelnahay inay higsadaan oo gaaraan waxaan rajaynaynaa kulankan wixii ka dambeeyo in kulamada dambe ay noqon doonaan kuwa intii hore ka sii sahlan maadaama aan u sameynay ambaqaad iyo wadiiqo ama road map wada hadalku ay ku socon doonaan waxaan u mahad celinayaa dawladda Turkiga oo wada hadaladan ka geysatay markastana ka geysata dadaal iyo juhdi aad u dheer waxaan kaloo mahad celinayaa ergada walaalaheen reer Somaliland oo runtii muujiyay daacadnimo muujiyay walaalnimo muujiyay tanazul iyo maaragtay danayn aad u xoog badan wada hadal u danayaan waxaan rajaynayaa wada hadal dambe oo muddo 9 cisho kadib la qaban doono inay noqon doonaan kuwa mar walba lagu sii dhawaado xalka kama dambaysta ah ee arinta u dhaxaysa labada dhinac Axmed Saki Daahir Xasan telefishinka qaranka Somaliland magaalada Istanbul